بسم الله الرحمن الرحيم داود الميل بشكتان سود وهذا تاريخ maanta waa 20 bishii afraad 2022 TV ga Ukraine ayaa wax soo bandhigay diyaaradda helicopter oo diyaaraddaas oo soo dhacaysa diyaaradaha raxan ayay la socotay marka ilaa hadda wax ku dhacay Russian-ku maartay ma sheegin laakiin Ukraine-tu waxay leeyihiin waa soo ridnay marka wariyaasha TV ga qaranka Ukraine ayaa soo bandhigay arrinkaas war ka soo baxayna ma jiro dowladda Ukraine ilaa hadda Russian-ku waxay leeyihiin فيديو 2015 waa propaganda leeyihiin dhinaca kale madaxweynaha Ukraine waxa lagu eedeynaya in dagaalka si buunbuunayo midowga Yurub iyo galbeedka xoojinaya hufar badan laakiin khubaro u hadashay waxay leeyihiin dagaalka inuu Zelensky si wado waxdan ugu jira malaha reer Ukraine iyo reer Yurub daawada dhinaca kale madaxweynaha dowladda Russia ayaa maanta tole saraakiisha gaashaandhigga iyo militariga la hadlay asagoo chief of command taliyaha ciidanka qalabka sida dalka Russia madaxweynaha ayaa qalabka wuxuu kula hadlay suunka waxaana ka wada hadleen xaaladda dalka amniga iyo gantaal khatar oo maanta la tijaabiyay gantaalkaas magaciisa la yiraahdo Sarmat ICBM Sarmat ICBM qaaradiiska goosha waa mid caalamka dhan ay haysan nuclear-ka ayuu qaadaa waxa la sheegayaa halkii magaalo uu ku dhaco sida London oo kale inuu 2 milyan ku dilin karo magaalooyinka dhan ay guban karaan dadka qaarkood waxay leeyihiin khibrada militariga ee hadii lagu dhufto Yurub bartamaha Yurub oo kale Jarmalka ah in Yurub dhan ay gubanayso waa gantaal khatar ah madaxweynaha Ruushka wuxuu sheegay wacd ku maray cadawgoodu in hadii security wadankooda uu arko inuu khatar galayo inuu adeegsan doono wuxuuna ugu baaqay reer galbeedka inay laba jeer ay fakaraan they have to think with two eyes madaxweyne Putin reer galbeedku in laba jeer ka fakaraan ayuu sheegay in gantaalkan uu sahan ciyaar wuxuuna markaa madaxweyne Putin ka digay hadda xilli walba inuu adeegsan karo nuclear-ka maadaama hadda magaalada caasimadda Kiev ay ku adkaatay inuu qabsado khibrada militariga waxay sheegayaan in madaxweynaha dowladda Russia oo xilliyada soo socda weegan ama wiilka xiga inuu adeegsan doono nuclear-ka sida daraaddeed daawadayaal khabiir u hadla asna xagga saxaafadda iyo militariga oo Talyaaniga ayaa ku eedeeyay Mareykanka in dagaalka Ukraine uu ka faa'iideysanayo asagoo maartay ku gabanaya midowga Yurub wuxuu sheegay Yurub in dagaalkaas wax maartay faa'iido ay isugu jirin reer Yurubna wuxuu maartay Mr Angelo Di Orsi waa khabiir Talyaaniga oo ka faalooday militariga waana journalist wuxuu sheegay marka in madaxweynaha doqonka reer Ukraine wuxuu yiri madaxweynaha doqon oo aqal badnaan oo majaalista dagaalkan uu horinayo khibradna uma laha Yurubna wuxuu rabaa inuu gubo Mareykankana wuxuu rabaa in dagaalkan Ruushka lagu sii wado China oo asna lagu hawgaliyo maartay dagaal kale marka arintu